ninkan lagu magacaabo Ibrahim Traore marar badan ayaa waxa la isku dayay in la dilo oo nafta la dhaafiyo sidoo kalena waxa loo diyaariyay isku dayo afgambi kuwaas oo dhamaantood fashilmay oo ku hortagay waxa wadankiisa laga soo buuxiyay jaajuusiin kuwaas oo raadinaya hal fursad oo ninkan looga faa'iideysan karo si loo dilo ama wadanka looga afgambiyo sidoo kale ninkan waxa laga dagaalamaa dhanka saxaafadda oo wadamada reer galbeedku waxa ay wadamadooda ka xayireen ama aysan ka ogolayn in ninkan social media-hooda looga hadlo dadkooduna ay wadaan oo ay macluumaad iyo xog badan ka ogaadaan haddaba maxay tahay sababta ninkan sidaas oo dhan loogu daba joogo oo loo doonayo in la dilo sidoo kalena wadanka laga afgambiyo maxaa laga rabaa oo uu galabsaday maxayse ka faa'iidaya dadka doonaya in ninkani ay meesha ka saaraan oo isaga dhanba ay iska horleexiyaan muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa su'aalahaas jawaabahooda sababta ninkan lagu haysto iyo qaabka looga dagaalamo dhanka miidiyaha oo aan sheeko cusub idinkaga hayo waxaan idin leeyahay soo dhawaada muuqaalkan like saar haddii aad igu cusub tahayna waxaan ka inaad subscribe soo dhahdo oo aad ka mid noqoto asxaabtida sharafta badan mahadsanid intii aad daawanayseen ama aad la socoteen dhammaan sheekooyinka la xiriira Ibrahim Traore iyo wadanka Burkina Faso waxaad ku maqlayseen isku dayo afgambi oo aad u fara badan kuwaas oo lagu doonayay in ninkan xilka looga xayuubiyo iyo dhagar badan oo ninkan la damacsanaa si nafta loo dhaafiyo waxaana ka mid ahaa in lacag 5 milyan la siiyo mid ka mid ah ilaaladiisa ama waardiyihiisa qaaska ah si ninkan dilkiisa uu uga la shaqeeyo koox doonaysay in ay nafta dhaafiyaan iyo sidoo kale in loo keenay shaah sumaysan xilli uu shirka qayb galayay kaasoo ugu dambeyntii ay ogaadeen sirdoonka wadankaas oo ay ka badbaadiyeen waxayna miiska u saareen warqad ay ku qoran tahay waxa la doonayaa in lagu keeno shaah sumaysan ee sidaas la soco taasina waxa ay sababtay inta aan shaah loo keenin inuu sii ogaado in uu sumaysan yahay marar kala duwanna waxa loo galay wadooyin kolaya ciidan ah oo la socday ayaa la weeraray dhulka ayaa wax loogu aasay walina waxba kuma uusan noqon oo intaasiba waa uu ka badbaadayay si guudna ninkaani gabi ahaantiisuba waa uu dakanaysan yahay oo waxa u dhigan dabane aad u fara badan si kastana waxa la isku dayayaa in la dilo oo la iska horleexiyo waxyaabaha lagu haysto oo aan la doonin in ninkaani oo madaxweyne ka sii ahaado wadankan ku yaala qaaradda Afrika ee Burkina Faso waxa ugu waaweyn uguna muhiimsan laba qodob ama laba sababood dartooda mid koowaad waxa ay tahay in ninkaani uu diiday in wadamada reer galbeedku ay wadankiisa la maamulaan oo ay gudihiisa joogaan sida aad la socotiina waxa uu iska buriyay ama wadankiisa uu ka eriyay dhammaan ciidamadii shisheeye ee ay lahaayeen wadamada reer galbeedka oo ugu horeeyo wadanka Faransiiska mana jiro ama maba la soo helayo wadan ku yaala qaaradda Afrika kaasoo aysan ku sugnayn dawladaha shisheeye oo aysan danahooda ka wadan wadankii aad rabto niyadada soo gali waxa ku sugan dad reer galbeed ah kuwaas oo u adeegaya dana shisheeye oo ujeedooyin kala duwan u jooga qaaradda dhanna markii laga reebo ugu yaraan 5 wadan waa kuwa si dadban loo maamulo oo dawladaha shisheeye ka amar qaata marka ninkan waxa lagu haystaa maxaad noogu diidan tahay in wadankaaga aan kula maamulno oo inaga aad hoos imaato waxyaaba u fududeeya ama ay u adeegsadaan maamulkoodana waxa ugu horeeya lacagta iyo inay dhaqaalo iyo biil siiyaan kadibna ujeedkooda ugu weyn oo ay ka leeyihiin waxa ay tahay inay iyaga ka amar qaataan oo aysan weligood soo gaarin ama aysan garab ordin ujeedka ugu weyn ee wadamadaani leeyihiin waa midaas ujeedka labaadna waxa uu yahay wadankii leh khayraad iyo dhaqaale isaga u gaar ah waxa ay rabaan inay ka faa'iideystaan oo iyagu si madax bannaan ay u daldashaan isla markaana ay u gurtaan sidaa darteeda wax dana ugu ma jirto madaxweyne dhahaya wadankayga waad iga baxaysaan oo ilama joogaysaan lacagtiina iyo ciidamadiina ma rabo ee faraha iga qaada sidaas haday dhacdo iyagu waxa ay ku weynayaan halkaasi laba arrin oo aad u waaweyn mid waxa ay tahay ka dambeyntii iyo maamulkii iyaga looga amar qaadan jiray iyo sidoo kale khayraadkii ay daldalan jireen oo ay sida bilaashka ah ku heli jireen madaxweyne kasta oo ka taliya wadan Afrikaan ah oo intaasi diidana waxa ay ku qasban yihiin in ninkaas ay iska horleexiyaan oo isaga dhanba ay meesha ka saaraan waxay isku dayayaan inay afgambiyaan waxay isku dayayaan inay dilaan waxay isku dayayaan in ay kooxo kala duwan ku hubeeyaan haddii ay noqon lahayd ururo hubeysan dad mucaarad ama falaaga ah oo ciidamo wata iyo sidoo kale kooxo jaajuusiin ah oo halis u maleega madaxweyne Ibrahim Traore maadaama uu intaasi diiday waxa uu hadda la kulmayaa dhammaan dhibaatooyinkaas oo waxa ku socota operation iyo shaqo aad u weyn oo la doonayo in isaga meesha looga saaro qodobka labaad oo keenaya in ninkan la dagaalamo oo sidaas oo dhan loo eriyo waxa uu noqonayaa horumarka iyo dadaalka oo dadkiisa iyo dalkiisa ku bixinayo Ibrahim Traore inta uu madaxweynaha ka ahaa wadanka Burkina Faso waxa uu daahfuray ugu yaraan 10 mashruuc oo midka kale uu ka weyn yahay kana wax soo saar iyo faa'iido badan yahay waxaana kamid ahaa warshado gaariyaasha sameeya kuwa cuntooyinka iyo qudaarta warshadeeya garoomo diyaaradeed wadooyin nidaamyo waxbarasho
awoodsiinta iyo qalabaynta ciidanka iyo mashaariic kale oo kala duwan oo dhammaantood aad u waaweyn. waxay og yihiin haddii waddankaani uu muddo 10 sano ah sidaasi kusii socdo inuu noqonayo waddan aad u weyn, awood leh, dhaqaale badanna haysta, oo noqonaya waddan iyaga la tartami kara ama u dhigma. taasina iyaga wax dana uguma jirto in waddan ku yaala qaaradda Afrika uu awoodda intaasi la eg yeesho. waxa kaliya oo iyagu doonayaanna wax kasta iyo dhib kastana ay u mari karaan waa in qaaradda Afrika ay sidaan sii ahaato oo iyaga ay ka dambayso madaxdooduna ay ka amar qaataan. madaxweyne Ibrahim Traore waa nin da'yar ah, wuxuuna waddankan sii maamuli karaa haddii uu noolaado waqti dheer, waxaana muuqata inuusan isbedelin oo sidaan iyo si kasii daran oo u wadi doono dadaalka uu ku bixinayo horumarinta dadka iyo dalkiisaba. sidaa darteed waxay istusayaan in ninkaani ay ka hortagaan, mana doonayaan in shaqadaani uu sii wado, oo waxay u baahan yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan ay shaqo joojin ku sameeyaan oo ay meesha ka saaraan. waxayna sameynayaan wax kasta oo u suurtagelinaya in ninkaani ay ku joojiyaan. intaa kadibna waxay hadda bilaabeen oo ay soo kordhiyeen in ninkan ay kala dagaalamaan dhanka warbaahinta iyo saxaafadda, oo ay isku dayaan in shacabkooda iyo dadkooduba waa wadamada reer galbeedka aysan waxba ka ogaanin. sababtuna waxa ay tahay qof kasta oo maqla ninkan sheekadiisa adduunka meel kasta oo uga sugan yahayba, markii looga sheekeeyo madaxweynahani sida uu wax u wado oo ay arkaan, waa ay taageerayaan, waana ay ka helayaan daacadnimadiisa iyo dadaalka uu ku bixinayo dadkiisa iyo dalkiisaba. si guudna bini'aadanka ayaa wax u samaysan yahay inay jeclaadaan qof kasta oo daacad ah oo tiisa wata dadkiisana u shaqaynaya. yacni wadamada reer galbeedku waxay arkayaan in ninkaani uu yeelanayo taageero aad u fara badan. hadda ninkaani waxaa laga taageeraa inta badan qaaradda Afrika, oo haddii aad daawato muuqaalada looga hadlayo waxaa comment ka bixinaya oo aragtidooda ka dhiibanaya ama ammaanaya dhammaan dad iyaga kasoo kala jeeda wadamada ku yaala qaaradda Afrika, waxaana aad u faafaysa taageeradiisa iyo dadka jacaylka u haya. ayaguna ma doonayaan in wadamadooda uu ku faafo jacaylka ninkaani loo qabo iyo dadka garanaya oo macluumaadka saxda ah ka haya. waxaana marqaati ah oo asbuucan gudihiisa dhacday nin wariye ah oo caan ah oo adduunka oo dhan newskiisa iyo xogtiisa laga dhageysto oo lagu magacaabo Dylan Page, ama dadku intooda badan ay u yaqaaniin oo caan ku ah magaca News Daddy, ayaa waxa uu ka hadlay markiisii ugu horeysay madaxweyne Burkina Faso sida uu wax u wado iyo shaqada uu ka hayo waddankiisa iyo dagaalada dibadda uga socda. waxaana ninkan akoomadiisa oo TikTok ugu horeeyo ku xiran dad dhaafaya 10 milyan, waana qofka maanta ugu horeeya ee laga daawado newska ama xogta caalamka. waxa uu ka daawasho iyo views badan yahay dhammaan idaacadaha ugu waaweyn caalamka oo ay ugu horeysay Al Jazeera, Daily News iyo sidoo kale idaacad kasta oo niyadaada ku soo dhici karta. haddaba markii uu ka soo hadlay Ibrahim Traore, ninkaani maxay ku sameeyeen? waxaa dhacday in TikTok uu hawada ka saaray muuqaalkii ninkaani uga hadlayay Ibrahim Traore, kaasoo ay daawadeen dad gaaraya 10 milyan oo views ah. ayaa waxaa lagu qabtay violation, kadibna shirkadda TikTok ayaa xirtay. wuxuu ninkaani ku hadlaa luqadda Ingiriiska, wuxuu degan yahay waddanka UK, sidoo kalena dhalasho ahaan wuxuu ka soo jeedaa waddanka South Africa. waxayna dhacdadaani ku noqotay isaga iyo dadkii daawan jiray wax ay qaadan waayeen oo ay aad ula yaabeen, maadaama uu isku haystay inuu xor u yahay inuu ka hadli karo wax kasta oo ka dhaca caalamka. laakiin waxa uu ogaaday inaan la doonin inuu ka hadlo nin Ibrahim Traore oo kala ah. sababta sidaas ay u sameynayaan waxa ay tahay in ay doonayaan in Ibrahim Traore aan waxba xoga laga ogaanin oo aysan badan dadka jecel oo taageerayaasha u ah. sababta Ibrahim Traore loola dagaalayo oo loo doonayo in hawada laga saaro waxa ugu waaweyn qodobadaas aan kuu soo sheegay oo ah kuwa ugu muhiimsan galkana ah. bal waan arkaynaa meesha ay isku dambeeyaan ay cid guuleysata. nin daacad ah oo doonaya inuu kaligiis u shaqeeyo dadkiisa iyo dalkiisa isagoo ay ka maran yihiin gacmo wadamo shisheeye, iyo dhanka kale niman doonaya in ay waddankiisa maamulaan, gacmaha ay la soo galaan, dhaqaalihiis ay qaataan isaga uu ka amar qaato. labadaas dhinac ayaa ishaya. ugu dambayntana cid ayaa guuleysan doonta oo banaanka u soo bixi doonta. intaa kadib adiga aragtidaada ku aadan sababaha ninkaani loo beegsanayo oo macquul ah oo laga yaabo inaan ka tagay, qaybta commentiga noogu soo qor. waadna ku maasantahay daawashada muuqaalkan. wassalaamu calaykum.